بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay tahay taariikhdu 15 May 2017 waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maanta oo ah maalintii dhalinyarada waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah boqolkiiba 70 shacabka Soomaaliyeed waxaan idinku hambalyeeynayaa inuu dalkiina taagan yahay waqti aad idinku gacanta ku qaban kartaan labo inaad xasuusnaataan cidii soo xoreysay wadankan cidii soo gaarsiisay ummadda Soomaaliyeed sharaftii iyo karaamada ay lahaan jirtay inay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed si dalkeenu ugu soo noqdo iftiinkii uu lahaan jiray sharaftii iyo karaamadii uu lahaan jiray waxaa loo baahan yahay mar labaad dhalinyarada Soomaaliyeed inay hormuud ka noqdaan qarannimada iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed waa idin hambalyeeynayaa mar labaad waxaan idinku bogaadinayaa inaad maamulka iyo hoggaanka wadanka gacanta ku qabsataan qaybna ka noqotaan horumarinta dalkiina waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh